ogtahay in kacbada sharafta badan xilli aan weliba qof muslim ahi aanu adduunka joogin uu soo bixi doono nin ka iman doono dhulka xabashida uu burburin doono kacbada sharafta badan ninkaasina waxa uu leeyahay astaamo ahaan sidan ma ogtahay in aakhir sabaanka uu soo bixi doono tajaalu cawa sidoo kalena uu ka kasoo degi doono nebiyullaahi ciise calayhi salaam ogtahay in haweenaydii la odhan jiray al-khansa magaceeda oo dhammaystiran uu ahaa tamaadur bintu camru ibnu al-xaarid al-sulami waxayna ahayd haweenaydii ku caanbaxday suugaanta baroordiiqda iyadoo u tirisay aabbaheed iyo walaalkeed sakhar iyo mucaawiya waxa ay 40 sano u barooranaysay geerida walaalkeed sakhar waxaana loo soo sheegay in 4 wiil oo ay dhashay ku shahiideen duulaankii qaadisiya iyadoo arrinkaasina ka hadlaysa al-khansa waxa ay tiri ilaahay baa mahad iska leh igu sharfay dilkooda aniga oo rajeynaya in rabbi igula kulmiyo deegaanka naxariistiisa al-khansa naaneystaas waxa ugu baxday sankeeda oo yaraa iyada oo xagga sare sankeedu u qaadsan in sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi uu yahay xaafidul qur'aan si wanaagsan qiraa'ada u yaqaana tusaale اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم waxaana sheekh cabdirashiid dhalay mid ka mid ah culimadii Soomaalida muddo hadda laga jooga 48 sano ka hor markaas waqtiga Soomaaliya aan ka ahaa waana Allah u naxariistay sheekh cali suufi oo loogu magac daray masjid muqdisho ku yaala balse intaan magacaasi sheekh cali suufi masaajidkaasi loo bixin masjidka sheekh cali suufi waxa la oran jiray masjidul qur'aan waa kan sheekh cabdirashiid cali suufi oo arrinkaasi inoo sharaxaya mar uu wareysigu siiyay cag madhige amba cagta xaaji oo ka tirsan Universal TV haddaan u soo noqdo masjidkeena masjidkii sheekh cali suufi lagu magacaabo horta waalidka raxmatullahi calayhi masjidka wuxuu isagu ku magacaabay masjid al-qur'aan dadkii baa diiday inay magaciisa ku magacaabaan maahane waa ku baxay magacaas laakiin isagu wuxuu had iyo goor oran jiray waa masjid al-qur'aan صوما بشهر رمضان صوما 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 بشهر رمضان صوما 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 صوما